Dinku waxaad ugu yeertaan Prime Minister, but I will give him Somali's president. Anigoo ku hadlaya codka jaaliyadda Soomaalida la hayb sooco ee aad magacyada quruxda badan aad u bixiseen. nasiib wanaag waa dhamaatay waana soo gabagabowday xilligii uu ninka gabooyaha madhibaanka Tumaalka Muuse Dheriyaha Yibraha ay ka faani jireen waxa ay u dhasheen. oo aad wax yar nala dareenteen kolkaad wadamada Yurub aad timaadeen oo lidinku midabta kooray kalarka ayaa aad iyo aad ii gubayay ilaa yaraantaydii. waxaan halkan ka aasaasnay caasimadda Norway ee Oslo jaaliyad u hadasha u dooda xuquuqda ay leeyihiin u raadisa dadkaas aad ku magacaawdeen 4 nin iyo naagta. It means Quraanku wuxuu sheegayaa nusqaan inay yihiin dumarka ayay diinta sheegaysaa. marka idinkii waxaad qaadateen magacii ragga ummadii culamaa diin lahayd mutacallimiin lahayd jeneraal lahayd wasiir lahayd waxaad ku magacaawdeen wax la yiraahdo dumar. anan hadal ku dheeraanaynin waxaan ka aasaasnay caasimadda Norway jaaliyadda u dooda. waxaan u sameynay website cusub oo hadda dhismihiisa ku socdo oo la yiraahdo Sinaandon. waayo ani waxaan rabaa sinaan inaan kula sinaadaan rabaa. dad badan oo halkan iiga soo horeeyay ka hadlay halkan waxay magacaabeen dhowr goor rajo dhow inay jirto oo xal loo helayo mushkiladda Soomaaliya. laakiin aniga waxaan idin leeyahay rajadaas dhow aad beentis ku sheegaysaan aad ayay idinkaga fogtaa. qodobada ay ugu fogaatay waxay ka mid tahay xaqa haddii afka laga wada feeraha ka dilaaca waxa hadda feeraha ka socda ee 20 sano socda waa xaqii aad afka ka dabosheen. Soomaaliyay haddii la doonayo dawlad saxa daacada cadaalada inay wadan ka dhalato 21 sano rafaadka aanu ku jirnay aanu ka baxno waxa aad samaysaan qodobada aad u mari karaysaan oo sahalka ah oo ay ka mid tahay ilaa laga bilaabo maalinkii Soomaaliya la aasaasay ayaad waxaad u gafayseen qof ka diin badan ka quraan badan ka cilmi badan ka waxbarasho badan yaad waxaad tiri kuma guursanayno nagamana guursanaysid. dadkaas haddii aanay afka ka hadlaynin caloosha ayay ka hadleen calooshii ayaana qarxatay. waxaad samaysaan marka dadka waxay leeyihiin suldaano ugaasyo culamaa diin wasiiro mutacallimo nooc walba ayay leeyihiin. ayaga gogolha loo dhigto afisa la weydiisto alla bari ha la sameeyo nugu tufa ha la yiraahdo Soomaali weynay 4 nin ee Soomaalida ah. ha la
weydiisto ilmihii idinka xanuunsada waxaad la aadaan masaajidka waxaad tirahdaan quraan ha la ii saaro macnaha waa hana loogu tufo war Soomaaliya dawladdiina ha loogu tufee bal dadkii ku tufi lahaa gogol u dhigta oo tufma weydiistay cafis mideeda kale Soomaaliya waxay ku taalaa qaaradda Afrika waana wadanka ugu weyn markii la fiiriyo qaaradda Afrika ma ka soo saari kartaan hal tuulo ama hal beel oo gabooyaha ay leeyihiin oo lagu magacaabay oo liiri tuuladaas waa tuuladii gabooyaha maxaa noo qaybsateen maxaa aan ambareelo u hor fadhinaa afartan nin maxay noo qaybsadeen oo aan u huwanahay dalada ay wataan ma naloo waayo Soomaaliya waa weyn tahay waxa laga yaabaa haddii laga baxo maxay ahayd Hiiraan ilaa Gaalkacyo laga gaarayo dhul weyn oo baaxad weyn oo banaan oo daaqsina oo aan dadna deganayn inay jiraan war dawladda Soomaaliya ma weyday ma ku fakari weysa ama dadweynaha Soomaaliya war dadkan gobol hal la siiyo ama degmo hal la siiyo 2 minad ay dhiman waana ku dheeraaday midaada kale ma ku fakarteen maanta oo dhan waxa ku celcelinayseen diyaar ma u tihiin farmaajo ana koow dadka diyaar u ah weli ma magacaawdeen nin gabooyo ah diyaar ma u yahay inuu noqdo madaxweyne wadanka Soomaaliya oo xukumo I don't believe ma rumaynayo waxa ii diiday wiilkayga in gabadhaada uu guursado see igu ogolaanaysaa inaan adiga ku xukumin madaxweyne ku noqdo that's impossible kow midaada kale waxay ka hadlaan Soomaalida markay conference saano kale isugu yimaadaan ama culimada diintooda ama dadkooda waxgaradka ama mutacalimiintooda ama madaxdooda ama aftahanadooda waxay ka hadlaan waxay yiraahdaan war dumarkan aan ka guursano war dumarkii waa guursatay markii aad tahay nin weyn oo qabiil weyn gabadhii aad guursatay wiilkii ay dhashay wuxuu ku abtirsanayaa qabiilkaaga laakiin wiilkan minority-ga ah sababta gabadhaadu ugu guurin weysay why macnaha wiilkan wuxuu dhalayaa wiil gabooyo dhalaaya marka gabadhaada ma ogolid inay dhasho wiil gabooyo ah that's no point aadaan uga xumaan ana soo gabagabeynaa hal daqiiqo ay hartay soo maleynayo hadda waxaan u aasaasnay jaaliyad u doodaysa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee la hayb sooco waxaan ka furnay caasimadda Oslo diyaar ma u tihiin daacad ma u tihiin inaad la shaqaysaan oo aad ka qayb qaadataan الله ميدو كوجيا waxaan u baahanahay medlam farabadan istoote farabadan oo waxaan wax ka qabta medlam ina ka noqotaan diyaar mootiin Allah miidu ku ogyahay dardaarankayga u dambeeya waa gabooye ayaa dhulka dejin kare gabooye gogashaha loo dhigo waxba yaan Kenya iyo Ethiopia la aadin aad ayuu mahadsan yahay mudanahaas Amin Amir 22 sano ayuu ka hadlayay qadiyada Soomaaliya wili hal qodob oo gabooyaha quseeya kama aanu soo qaarin Universal TV waxay qabatay doodo badan oo dhinac walba abaaraha faqriga dulamkan maxay wax uga qaban weysay ay uga hadli weysay labadaas qodobba waa ka dacwoodaha waxa laga qabto aad baad u mahadsan tahay